durdurka aan gu iyo jilaal go'in iyo dhirta cagaaran ayaa sumad u ah deegaankan. waa magaalada Gudmo Biyo Cas oo ku taalla gobolka Sanaag waxaanay dhanka bari kaga beegan tahay magaalada Ceerigaabo. deegaankan ayaa waxaa ka baxa dhirta uduga laga sameeyo ee ay ka mid ka tahay beeyadu. beeyadu waa geed mucjiso ah oo dhagax qalalan bartankiis ka baxa. dadka deegaanku waxay ii sheegeen inaan geedkan dib loo beeri karin, taasina ay sababtay in la kala dhaxlo oo uu jiilba jiil ku wareejiyo. beeyadu waxay tahay waa laba qaybood. qayb waxa la yiraahdaa maydi iyo moxor baa la kala yiraahdaa. geedka la yiraahdo moxorku wuxuu leeyahay foox waa la shitaa oo waa la cabaa oo waxa laga baxaa cadar baa laga baxaa waa geed udgoon geedka moxorka la yiraahdo. maydigana waa la dhoofiyaayo isagana waxa weeye yaman yacaynkaas loo dhoofiyaa dalalkaas loo dhoofiyaa. waa maydigii ka soo go'ay dhirta oo xabagta ah. hadda ayaa gaariga la saaray waxaana loo sii wadaa suuqyada ganacsiga ee lagu iibiyo maydiga. magaaladan waxaa ku hareeraysan buuro dhaadheer oo qaarkood ay ku xardhan yihiin raadadkii dadkii hore kuwaasi oo aan weli la diiwaan gelin. halkan waxa weeyaan meelaha aataara qadiimka sawirada aragtaan ayaa ku yaala godad badan oo kalena meesha way ku dhow yihiin oo sawiradan oo kale oo ka cashibsan ay ku yaaliin oo lo iyo daayeero iyo libaax iyo niman waxaasoo dhan ay ku yaaliin. goobtan quruxda badan buuraha dhaadheer ee ku hareeraysan ayaa jidka loo maro ka dhigay mid adag, waase goob ku habboon dalxiiska.